in lagu tartamo hirgelinta naqshado cusub iyo dhisidda daara dhaadheer ee la jaanqaada dunida inteeda kale waxa ay suuragelisay in muuqaalo aan hore looga baran ay la soo baxdo caasimadda cusub ee Muqdisho oo maanta aynu joogno dhismaha soo jiidashada leh waxaa ku tartamaya shirkado badan oo qaabilsan dhismayaasha guryaha taas oo ay dheer tahay hantiilayaasha dalka oo iyaguna loolan xoogan ugu jira midba midka kale in uusan ka daara dheeraan amaba ka fiicnaanin tartankaasi baaxadda leh waxa uu suuro geliyay in uu sare u qaado bilicda caasimadda Muqdisho waa arin ay u baahi qabeen dadyowga Soomaaliyeed kuwaas oo mar uun ku rajaweena in ay arkaan Muqdishadii hore oo soo ceshatay maqaamkeedii iyo muuqaalkeeda lana tartamaysa caasimadaha la jaarka ah hadda waxaa muuqata in maalin kasta la hirgelinayo dhismayaal daara dhaadheer ah oo leh wiishash casri ah iyo bilicsi soo jiidasho leh kuwaas oo loo dhisayo hanaan casriyeysan oo dunida la jaanqaada ka sokow dhisidda daaraha dhaadheer ee laga hirgeliyay hareeraha wadooyinka Muqdisho oo ay degan yihiin xarumo ganacsi iyo qoysas ku nool dabaqada sare waxaa soo raaca kuwa badan oo ku dhex yaala xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasi oo qudhooda ka qayb qaatay bilic soo celinta xaafadaha kuma koobna oo kaliya dhismayaasha guryaha dhaadheer balse waxaa jira guryo gaagaaban oo loogu talagalay inay ku noolaadaan qoysaska kuwaas oo loo bixiyay magacyo kala duwan lagana hirgeliyay caasimadda Muqdisho iyo duleedkeeda Muqdisho waa ay sii hormaraysaa waxa ayna cagta saartay wadadii ay ku hogaamin lahayd caasimadaha dunida waana kobac dhaqaale ee hadda ka jira gudaha dalka